waxaan odhan lahaa ummadda reer somalilan waa ummad hidde iyo dhaqan leh diin iyo dadnimo leh waa ummad weligeedba yacni tartan loo geli jiray xilka dhaqan ahaan marka adeegto lafteeda waxaa jirta inaynu dhaqan ahaan ugu tartami jiray oo cod loo qaadi jiray xitaa qofka suldaan laga dhigayo dadku ay jiri jirtay marka tanina waa tii aynu dhaqan kalu hayn oo aynu dimuqraadi inoogu soo bixiyeen shaar inoogu soo xidheen waxaan odhan lahaa ummadda reer somalilan 3 musharax iyo 3 ku-xigeen baa inoo taagan wuxuba waa inamadeenni qof waliba ama mabda ha ku raaco ama danaba ha bido oo ha ku raaco cid buu taageersayey cidda aad taageersan tahay waxay kaa mudan tahay inaad u codayso oo keliya inaad cid u rabaysto inaad u dagaalanto inaad u buuqdo midna xaq kuuguma leh hal cod baad leedahay halkaaga cod ciddaad siinaysa si insha allah bismillahi kariim waxaan rajaynayaa in si nabadgelya iyo xasilooniya iyo deganaana sidii horeba aynu ilaahayna uga barannay dhaqankana aynu lahayn ay inoogu dhammaato la isugu haniyeeyo bahasha waxa weeyaan xusbi waliba hadaf iyo mabda buu soo bandhigay inkastoo markaad eegto hadafyadooda iskuba dhadhow yihiin oo aanad wax aad ugu kala dordoorato u dhaxeeyo xusbiyada inaad shakhsi doorato mooyaane laakiin hadaf aad tiraahdo kaasina waxaa suu sheegay kani shaqaaluhu wuxuu qabanayaa kanina wuxuu qabanayaa cidda kale caynkaasa ma kala leh laakiin waxaa wanaagsan dadka inaan si qaab waxaan odhan lahaa qaabka beelaysan ha laga daayo dadka oo ha loogu tartamo qaab xusbiyaysan shirarkan iyo xafladaha reeraha loo qabanayana ha la yara cilmiyeeyo oo nooc kale oo haddaannu nahay beesha ree hebeshan meel walba lala tagaya iyo ree hebel haddaynu nahay waxaasa inaga dhexeeyeydan ha laga daayo war mabda'aasaan hayaa iyo igu raacaya